soo dhawaada asxaabta magacaygu waa Maxamed Nabiil kuna soo dhawaada channelka maanta balaas ee aad uga barateen muuqaalada cajiibka ah intaan ugu gudagelin haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub haddaba aynu bilowno muuqaalka ugu horeeya gurigan waa uu gubanayay dabdamiska ayaan isku dayay in ay dabka damiyaan ninkan ayaa soo galay isagoo ordaya dadka oo dhanna waa ay la yaabanayeen wax uu sameeyo kadib muxuu ka soo bixiyay guriga wiilkan yarka meesha dheer ayuu ka soo laalaaday hooyadiis ayaana gacanta ku haysay haddii ay muddo gacanta ku sii haysana waa ay daalaysaa marka dadkii ka agdhawaa meesha ayaa isku dayay in ay badbaadiyaan wayna badbaadiyeen ninkan waa uu gadgadoomayay dadka oo dhanna waa ay daawanayeen laakiin ma uusan ogeyn in uu ku aadan yahay dhagax weyn wiilkan ayaana badbaadiyay waqtigii ugu dambeeyay haweeneydan waayeelka ah waxa isleed wadada gooy laakiin uma aysan suuro gelin sababtoo ah gawaarida ayaa socday oo ma aysan istaagin ilaa markii dambe uu ka yimaaday wiilkan geesiga ah ee gawaarida ku qasbay in ay istaagaan ninkan waa uu labisnaa oo waxa uu galayay sawiro arooskiisa kadib biyaha ayuu isku tuuray si uu u badbaadiyo wiilkan yarka ah haweeneydan gaari ayay kaxeynaysay kadib waxay wadada dhinaceeda ku aragtay gabar yar oo ku ordaysa waxayna u degdegtay si ay u badbaadiso inta aysan wax soo gaarin sidoo kale darawalkan wiilkan yarka waxa uu badbaadiyay waqtigii ugu dambeeyay qofkan mootada wada kuma uusan baraarugin birta dhex taala wadada sababtoo ah tareen ayaa soo dhawaa oo looma ogoleen dadka in ay gooyaan wadada laakiin kadib maxaa dhacay mawjadan waa mid aad halis u ah doontan iyo dadkii saarnaaba biyaha ay dhex gelisay dabkan sida dabayshii oo kale ayuu u wareegsanaa ninkan wuxuuba hilmaamay inuu gaariga ku baakintay waddo tareen dhexdeeda
folks. ninkaana gaarigiis yarka waaba ka faa'iidaystay oo waxa uu ka dhigay taraag camal. waxaan u malaynayaa meeshan kuleelkeeda aad ayuu u sarreeyaa. ninkan gaarigiisa dhexdiisa ayuuba ku karinaa ukun. It's really hot inside. So you inside the car. Put an egg. Eggs cooked under 2 minutes inside the car.